ma doonaysaa inaad noloshaada wax ka bedeshid hadafka aad leedahayna ku guulaysatid. haddaba dhagayso fiidiyowga. kow waa inuu yoolkaada cad yahay. dadka inta badan waxay damcaan ama ku riyoodaan yaabo kala duwan, sida markuu qofku yar yahay wuxuu ku dadaalaa inuu ciyaaro ama imtixaanku ku guulaysto. markuu weynaadana nolol barwaaqo leh uu ku noolaado. sidee hadafkaaga uga dhigi kartaa mid cad? haddaba sidee hadafkaaga uga dhigi kartaa mid cad oo ay suurtagal tahay in laga dhameeyo? haddaba waa inaad raacdo tillaabooyinkan soo socda. oo garo hadafka aad doonaysid inaad ka guulgaarto. tusaale ahaan inaad barato qur-aanka kariimka, inaad barato luuqadda af carabiga, inaad barato farsamada gacanta. labo, ha noqdo hadafkaada mid qoran, laakiin iska ilaali inaad la wadaagto qof kale oo aadna ku kalsooneen, sababtoo ah dadka qaar waa xaasidiin, waxaana laga yaabaa inay kugu xasdaan hadafkaada. saddex, qabso waqti aad kusoo gabagabayn karto hadafkaada. tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad qur-aanka kariimka sanad gudihiisa muraajacaysid. afar, male dhibaatooyinka kaa hor imaan kara, xalna u raadi. ha ku cadaadeen dadka aad is leedahay way ku saacidi karaan. number 5, bilow fulinta hadafkaada, hana isku dayin inaad dib u dhigto. ku qasab naftaada inaad joogtayso fulinta hadafkaada. tusaale ahaan waxaa kuu qoondaysan inaad xafido qur-aanka kariimka sanad gudihii, waxaadna u qoondaysay maalin walba 2 bog. haddaba ku dadaal inaad joogtayso labadaa bog.